وهاجاك access control list وقت بقى يقول لي هي قيبي سوين هالكانوا يمانينا access control list هدان مقالله there is two types of access control list لبن نوع access control list أشيرة وحلا كلا يده standard extended بلا كلا يده standard كله configure كرين كرا by number يدهب لا يده number لا استعماله يو أما magac لا استعماله وحدي حسوسنا تا standard access list control كو inuu yahay mid simple amarka la configure gareynayo oo la configure gareyn kaliya ta source IP address ku kaliya ta la xidhi karo destination IP ga isaga lama saameynayo source IP address ku markaasi maadaama saameynayo kaliya ta waa standard balan extended kana magacna waa loo bixin karaa numberna waa la siin karaa name it iyo number labadaba waa la yiraahdaa waa loo configure gareyn karaa isagu laakiin intii standard ku qabanayay in ka badan buu qabanay maxaa kamid ah waxa kamid ah source IP address ka destination IP address ka ama source and destination aan israaciyo iyo source destination iyo sidoo kale ports ayaa laftiisa la israacin karaa specific protocols gaarana waa la xidhi karaa sidoo kale ICMP ka wada xidhbeen oran karna uu ka xidhaya marka number iyo name maxay ku kala duwan marka la configure gareynayo ID with number ID ga number baa laga dhigaya in global command na waa laga siinaya laakiin hadaynu isticmaalo name ka isaga waxa la isticmaalaya ID with name baa la isticmaalaya ID name wata yani iyo sub commands baa la isticmaalaya gudaha marka la sii galo sub commands baa la isticmaalaya